shirkan ama seminaarkan aad maanta ka soo qayb gasheen waa farxad inaan halkan ku wada kulanno annagoo dhammaan ah waalidiintaasoo ay ilmahoodu iskuullada dhigtaan. sababta maanta aan meeshan isugu nimidna waxa ay tahay inaanu ka wada hadalno, ka wada sheekaysanno waxbarashada waddankan iyo wada shaqaynta waalidiinta iyo macallimiinta ay wada shaqaynayaan. Soomaali hore waxay u tiri far keliya fool ma dhaqdo. Iskuul keliyana wax laguma barto, guri keliyana wax laguma barto. Waxbarashadu waa in waalidiinta iyo macallimiintu ay ciyaalka wax wada baraan. Macallinkii cashar buu soo siinayaa ilmihii. ilmaha marka cashar la soo siiyo, casharka weli wuu sii soconayaa. cinwaankeena halkaa ku qoran ama sabuuradaasba ku qoran Fixu van Hemat Koulusilta. waalidka ayaa u ah waalid la-aan wax lama barto. waalidka Soomaaliyeed haddii uu wax qoro, haddii uusan waxba qorinba, labadaba awood weyn ayuu ka geysan karaa waxbarashada ilmihiisa ay waddankan wax ku bartaan. maaha keliya waalidka inuu wax yaqaano, way fiican tahay hadduu wax yaqaano, laakiin isagoonana xataa waxba aqoon waalidku ilmuhu wax wuu bari karaa. marka ilmahaagu ay dugsiga hoose dhigtaan, waalidku waxaa looga baahan yahay inuu ilmaha caawiyo. marka sidee ayuu u caawin karaa? vanhemman rooli peruskoulussa. Olet kiinnostunut lapsen koulupäivästä. Waalidka inuu xiiseeyo ilmihiisa waxbarashada maalintaasa, waxbarashada socota, inuu ilmaha wareysto oo uu ku noqdo waalid xiiseynaya. ilmaha way yaryar yihiin. markay yaryar yihiin, waalidku markuu weydiiyo maxaa laguu soo dhigay maanta, ilmihii ma oranayaan aabba adigu wax miyaa taqaanaa, hooyo wax ma taqaanaa. su-aal ma imaanaysa markaas. maxaa laguu soo dhigay maanta, maxaad soo baratay maanta, yaad la soo ciyaartay, saaxiibo ma leedahay, iskuulka ma lagugu dhibaa, iskuulkaaga maanta siduu ahaa. in waalidku ilmihiisa la sheekaysto uuna ku dhiirigeliyo waa arrin muhiima. subaxii marka la baxayo oo ilmaha ay baxayaan, in lala dardaarmo. ilmaha wuu xasuusanayaa isagoo jidka baabuurta iska fiiri, wixii kula hadla hala hadli. inkastoo hadda dhibka Maraykanka iyo Ingiriiska iyo ay ka jiraan aysan halkan ka jirin, laakiin sideedaba way fiican tahay ilmaha in subaxii lala dardaarmo. haddii lagu waco gaarigan soo ful lagu yidhaahdo, ha u jawaabin. qof aadan garanaynin waxba ha ka qaadanin. haddii qof wax kuu dhiibo yahay uu ku dhaho ka diid. dardaarta subaxii ah oo ilmaha subax kasta lala dardaarmayo aad bay u fiican tahay. waxay ka mid tahay waxbarashada ilmaha wax la barayo. la sheekaysiga ilmaha lala sheekaysanayo waxay dhisaysaa, ilmahay dhisaysaa. kalsoonida ilmaha ayaa dhismaya. cunugii marka subax walba lala sheekaysto oo waxa loo sheego, wuxuu noqonayaa ilmo dhisan.
haddii uu casharada si fiican ugu soo shaqeeyo ama imtixaan intuu galo in lagu maaragtay hambaliyeeyo waad fiican tahay kasii wa dadaalkaaga meesha uu hadda uu joogo. haddii uu kulliitana isagana loo raadiyo sidii maaragtay lagaga caawin lahaa. markaad wax kasti la dardaartid ilmaha wuxuu asagana uu samaynayaa in iskuulladii uu ku dhiirnaado inuu subaxii maaragtay isagoo diyaara waxbarashada diyaar u ayuu iskuulkii aadayaa. haddii laakiin aan la waraysan waxaa dhici karta in asagana uu hilmaamo. ilmuhu way yareer yihiin, wax kasta ma xasuusan karaan. waalidka ayaa laga rabaa in uu xasuusiyo. dhiirigelinta waad fiican tahay, sidaa kusii wad, aad baad u fiican tahay, waad fiican tahay, sii dadaal. waa waxyaabo aad u muhiima ee aan la dhihin waxma baranaysid, waxaad tahay qof saasa. taas ilmaha way dhaawacaysaa. in ilmaha laga ilaaliyo waxyaabaha noocaas oo kale ah. adoo arkaya inuu u baahan yahay caawinaad ayaa lagu dhiirigeliyaa, adigoo markaa raadinaya meeshii laga caawin lahaa ama qofkii caawin lahaa. in maaragtay in ilmaha lala socdo lagana daryeelo xilliyada maaragtay ay cashar ka shaqaynayaan. maanta ma lagu soo diray laylis, ma lagu soo diray cashar, ma lagu soo diray casharkaagii ma ka shaqaysay. waalidka ayaa la rabaa inuu waxyaabahaasi xasuusiyo. ilmuhu isku mid ma aha. kuwa ciyaar badan baa jira, kuwa casharadii maaragtay ilaa la yihahdo casharkaaga ka shaqeyn aanan casharada soo bixinayn. ilmaha markuu soo galaba haddii aad guriga joogtid oo ay kuu saamaxayso inaad waraysato, wax ma lagu soo diray maanta, cashar ma lagu soo diray, ma ka shaqaysay. haddii galaas kow iyo laba uu yahay, haddii uu dhiganayo meeshan ilka kerada la yihahdo, meesha ma kaga soo shaqaysay, ma lagugu soo caawiyey meesha. haddii 3 iyo 4 uu yahayna aad tiraadid aada uga bilowdid maaragtay iskuulka maanta siduu ahaa, maanta qadada say ahayd, qado fiican bay ahayd, ma soo cuntay. ilma waxaa jira aanan iskuulka cuntadooda aan jeclayn. haddii uu meesha tagana wax yar uu qaato. ilmaha markay baahan yihiinna waxma bartaan. in subaxii ilmaha markay baxayaan, ilmaha qof walba ilmihiisa uu yaqaana. kii iskuulka wax ka cuna iyo kii aan wax ka aqoon, waalidiintu ilmahooda way yaqaanaan. qofkii aad is leedahay meeshaas cunto fiican lagama kariyo, ama wiilkaaga ama gabadhaada meesha cunto kuma cunayaan, in waalidiinta ay ka taxadiraan ilmaha oo subaxii si fiican u qoraacan aan la dirin. quraacdu waa number 1. ilmaha haddii si fiican u quraacdo, adigoo ilmahaagii og inuu cunto xun yahay, guriga inaad kula dadaashid baa la rabaa. cunto fiican aad siisid. ta kale hurdo joogto ah oo isku wada mid ah ilmaha inay seexdaan. waktigan waxaa soo baxay teleefoonadan casriga ah oo dadku waaweyn dadka yareerba waktiga ka qaada. marka waxaa la rabaa inaad ilmaha wakti u xisaabisid. ruutu ay kala yihaahdaan finishka, ilaa intee leeg ayuu television fiirsan karaa, ama uu telefoon uu ku ciyaari karaa. muddo intee leeg ayaa casharada laga shaqaynayaa, muddo intee leeg ayaa ciyaar kale u ilmuhu ay ciyaari karaan. inaad u qiyaastid ayaa la rabaa. dadkan baaritaanka sameeya waxay yidhaahdeen
laba saacadood wax ka badan ilmaha maskaxdooda uma fiicna telefoonada lagu ciyaarayo ama tv-gan la fiirsanayo ama geemamkan la ciyaarayo wixii 2 saac ka badan waxay yidhahdeen ma wanaagsan weliba waxay ku xiran tahay haddana ilmaha da-dooda ilmo yaryara waxaa jira xataa iskuol aanan gaarin oo telefoonno saacado badan wakti siiya hadduu ooyaba maaragtay telefoonka loo dhiiba marka taasina waxoogaa waagii hore telefoon ma jiri jirin ilmaha waa lala hadli jiray waa lala sheekaysan jiray hadalka ayay xataa gadaal u dhigtaa aan ilmaha lala sheekaysan marka weliba hadda waxaan joognaa meel qurba ah haddii adigii aada la hadli weysid waxaa laga yaabaa inuusan jirinba qof ilmahaagii oo ay la sheekaystaan oo ay la hadlaan af soomaaligii baa dhumayaba marka wada sheekaysiga aad bay u fiican tahay in waalidka iyo ilmaha dhalinyarada khaasatan waxay u baahan yihiin in la yidhaahdo annaga dhan telefoonada aan damida bal inta soo fadhiisto aan sheekaysanay la iswaraysto miis la wada fadhiisto la qadeeyo ama la quraacdo xilliga guriga la wada joogo maalmaha guriga la wada joogo la isla sheekaysto la alifo maaragtay wax dadka dhan ay xiisaynayaan oo qof walba fikirkiisa uu ka dhiiban karo qofkii hadalka si xun uu dhaha aan lagu qoslin la dhiirigeliyo sidii luqadda loo bari lahaa ilmaha inaan maaragtay la dhihin kaasaa kaa fiican kaasaa saas ah aan la wada simin qof walba ilaahay siba u abuuray qof hadalka uu soo daahiyaa qof uu soo hormariyaa qof maadadaasuu ku fiican yahay qof kaas kaluu ku fiican yahay qof xisaabtuu ku fiican yahay qof wuxuu ku fiican yahay maadooyinka la akriyo la qoro qof walba ilaahay waxbuu ku fiicnayay qof qur-aankuu ku fiican yahay in maaragtay kii fiican iyo kii kale aan la isbarbar dhigin war kana kaa fiican oo kanba saasuu sameeyey ilaahay baa u dhaliyey in lala dadaalo kaas kalena maaragtay qof walba meeshu uu joogo si uu wax u baranayo wax loo baro kuwii aada dhashay baaba isku mid ahayn iska daa kuwa kale ilmo kastana la aamino inuu wax baran karo qof kasta oo lala dadaala inuu wax baran karo waalidka uu maaragtay isagana taas uu qalbiga geliyo uusan islihin ilaahay markuu abuurayay qof walba maaragtay siduu u abuuray ilaahay siduu rabo ayuu dadku ka dhigay marka nin walbana lala dadaalo maaragtay sidii uu wax ku baran lahaa dhiirigelinta ayaa aad u muhiim hurdada waa shay aad iyo aad u muhiim ah ilmaha yaryar waxay u baahan yihiin saacado badan inay hurtaan si subaxii ayagoo daalan aysan usoo bixin hadday daalan yihiin wax ma baranayaan dadka waaweyn baa la yidhaahdaa 8 saacadood ba ha hurdaan kuwa yaryar wayba ka badan yihiinba waxaa laga yaabaa 10 saacadood inay hurdo u baahan yihiin ilmahana inta badan waxaa laga yaabaa inay daahaan jadwal loo sameeyo saacaddaas waa la cashaynayaa kadib waa la cadaysanayaa kadib waa la seexanayaa saacad hibil waa la soo kacayaa waa la quraacanayaa iskuol baa la aadayaa weliba kicitaanka aad buu muhiim u yahay innaga haddaan soomaalin nahay maasha allah ilaahay ilmo badan buu na siiyey guryuhuna waa iska yaryar yihiin musquluhuna waa iska yaryar yihiin ilmuhu kuma xisaabtamayo asaga kaasaa kaa horeyn doona kaasaa kaa horeyn doona kaasaa kaa horeyn doona kadib aa gelaysaa waalidkaa la rabaa qorshahaas inuu sameeyo saacadda ilmaha iskuolka laga rabo waalidka wuu og yahay inuu sii kiciyo inta guriga ku nool waa la is yaqaanaa qof walba imasa daqiiqadood buu musqusha ku jiri karo taas naftirkeeda xisaabay u baahan tahay haddii kale hadhowdii waxay noqonaysaa qof inuu daaho inuu ilmihii musqusha ay isku garaacaan dadku hataa isku mid maaha qof baa musqusha gala oo kusoo daaha qof baa gala oo hore usoo baxa waa la is yaqaanaa waalidka ilmihiis wuu yaqaanaa intaas naftirkeeda
waalidku uu ku xisaabtamo wax la yidhahda bil maa jira oo ilmaha loo soo qoro albaabka marka qab la siiyo qofka kadib markuu soo galo waa loo qoraa minuti buu soo hisaabay ma qorayaane muhastanud bay soo qora muhastanudku markaa intuu noqon karaa ma daqiiqad buu noqonayaa ma 5 daqiiqa ma wax ka badan baa ma 10 baa ma saacadii oo dhamaad buu ilmaha soo galay ma fahmi karaysid adiga laakiin macallinkii wuxuu kusoo qoray muhastanudkaas naftirkeeda waxaa la rabaa in ilmihii la weydiiyo imisaad daahday qaarkood baa ayagoo soo socda albaabka inta qab laga siiyo ku kaloo soo gelayay baa qab siinaya kalena intuu soo gelay macalimadii way bilowday ba dhab markuu soo galo ha okay ayadoon ilmihii la hadlin bay qoraysaa waaba waa buluugba marka qof walba yani reerkiisa wuu yaqaanaa in ilmaha wakti fiican la kiciyo saacadihii ay baxayeen la eego qof walba oo quraacdayna iskuolka la aado haddii kale waxa weeye hadhowdii ilmihii waxaa dhici karta obaytaya milow meydaan suamaa buu leeyahay haddii baahi ay hayso xisadii qadada goormaa la aadayaa buu leeyahay macalimadii maxay islihi kan gurigooda intagoo lagama karayo waxyaabaha maaragtay hadhowdii khilaafka waalidka iyo ilmaha u keenaya waalidka iyo macalimiinta dhexdooda cunuga markuu dhowr jeer uu sidaasi sameeyo waxaaba dhici kartaba inay fasiraad khalada ay qaadato oy tiraahdo ilmo taan kolukuraatorile kolukuratori kadib muxuu sameynaya dhowr maalmood markay sidaa dhacdo waxaa laga yaabaa inuu yihahdo teedaan lasin soo yolo ilmo ayaa dhici karta waxaan micno lahaynna ay arrintaasi ku dhacdo waa daahitaanka waa ilmihii oo aan fadhinaynin meesha ama ilmihii oo habsankiisa uu badan yahay ama casharadii loo diray kutitehtabihii loo diray oo aan laga soo shaqeyn waalidka kutitehtabaha saan hore usoo sheegay buu ka caawin karaa si uga caawin karaa inuu yidhaahdo qolkaasi gal ma lagu soo diray haye cunto haddii uu baahan yahay ma baahan tahay haa cunto cuntada kadib wakti salaada haddii la joogo waktigii salaadii la gaaray uu salaadiisa uu joogo salaadiisa ha tukado wixii ka tegay haddii iskuolka ay kaga soo tageen ha tukado kadib la yiraahdo isheg hay qolkaasa adiga lagu baneeyey casharka kaga soo shaqey haddii dadka ciyaal ka waaweyn ay jiraan la yidhaahdo ka fiiriya wixii uu sameeyey hataa ilmaha dhexdooda ayaa is caawin kareen haddii waalidka uu sameeyo jadwalkaas ilmaha isku daa maaha mid baa galaas 5 dhigta mid baa 6 mid baa 7 dhigta mid baa laga yaaba 1 iyo 2 inuu joogo kan diidaya naftirkiisa maaragtay ilmaha qaarkood ani macallin mahi ani kaas mahi kaas naftirkiisa waalidaa u tahay inaad maaragtay aasasabtidaada waa jadwalkii uu ku samayn lahaa iyo wuxuu ku samayn lahaa aad u samayso marka waxyaabahaas ayaa lagaga badbaadi karaa bilmadana aad bay muhiim u tahay in waalidka uu la socdo hadduusan la socon karin ama uusan akrin karin ilmihii inuu isku dayo inuu waalidka iskuolka toos ula xiriiri karo 2 week 3 week marka la joogaba turjubaan baan u baahanaha la qabto xaq baa loo leeyahay in turjubaan waalidiinta loo qabto biyo waxaa la yidhi intaysan kusoo gaarin baa la iska moosaan adiga laftirkaaga markii ay ku arkaan inaad active tahay oo waalidka aad la xiriiri iskuolka aad la xiriirayso waxaa laga yaabaa inaysan kugu soo dhiiran ninka wuu soo taagan yahayba ama gabadhan way soo taagan tahayba ay ku dhahaan waa qof ilmihiisa ka warqaba oo isagaba codsanaya wada hadal laakiin haddaan lagu arag haddaanan dad la soo xiriirin haddii ilmihii maaragtay ilmadii laga soo qorayay ay buluug tahay ama ay guduud tahay oo ay bataan ayagu waxay ku khasban yihiin inay kolukuratoriga ay la xiriiraan opila schoolta wax la yihahdo ay la xiriiraan
kadibna maaragtay ay arrinta sii balaabato ay gaarto ilaa iyo lasina soo yaro marka waalid la-aan waxa weeye waa waxbarashadu waalidka dhabar ayuu u yahay waa in waxbarashadana waalidka iyo ilmihiisa hadday isku xiran yihiin macallimiinta ay la socdaan waxbarashadu way ficnaanaysaa tan kale oo waddankan ka jirta ayaa waxa ay tahay ilmaheena ayagoo inta ku dhashay baa waxaa la geeyaa galaaska la yidhaahdo askax ilmihii inta ku dhashay oo xanaano ku bilaabay oo xanaano kaga soo baxay oo galaas one bilaabay baa askaxi la geynaya askaxi ilmaha dhan ma u baahan yihiin mise uma baahan ilaa intee la eg ayuu ilmaha u wadi karaa askaxi waxa weeye luqadiisa labaad weeye markaasi ayay ka dhigan tahay laakiin ilma inta ku dhashay oo ku barbaaray ma noqon karaa as ugsi oo imtixaanka ma la fadhiisanayaa ciyaalka finishka ah ma la fadhiisan karaa wuuna la fadhiisanayaa waana laga qaadayaa laakiin ilmaha markii iskuolka uu ka diiwaan gashan yahay ilmahan askaxi ruhma ayuu ka qayb galayaa micnaheeda waxay tahay iskuolkii resource wax la yidhaahdo ayuu ku helayaa yani dhaqaaluu ku helayaa iyadoo ilmihii aysan galaaskaasiba ka qayb qaadanaynin ayaan haddana laga saaraynin inta badan haddaanan waalidka uusan arrintaasi ku baraarugsanayn qaarkoodna way u baahan yihiinba ayagay baa faa'iido u tahay in askaxi ay dhigtaan oo ilaa iyo maaragtay secondaryga lukiya kaga baxaan ayagay faa'iido u tahay qaarkood laakiin ayaga dhan maaha kuwa waxaa jira ka bixi kara una baahan in laga saaro oo hore u soconaya way jiraan ciyaal badanaa jira oo markii waalidiintooda ay iskuolka la xiriireen ay ilmahoodii wareysteen galaas ka dhigataa adi luqadda finishka ilmaheed la dhigataa galaaskaaga wax ajribaya ma joogaa galaaskaaga wax finisha ma ku jira xisadda finishka yaad la dhigataa waraysi badan markaad samaysid waad ogaan kartaa macallinka wakti baad ka qabsan kartaa waad la hadli kartaa macallinkaa kuu sheegaya ilmahaaga ma u baahan yahay askaxi mise uma baahna dana adigaad soo bandhigin ilaa iyo dhamaadku u wadaya ilmo laga saaray anaa aqaan oo si shaksiya baan u aqaanay galaas mid waxaa laga saaray two markay ahayd gabar bay ahayd midna wiil buu ahaa galaas six soo maraya ayaa laga saaray markii laga saaray shahaadadiis iskuolka markuu dhamaynayay ee lasoo siinayay arviointi waxaa loogu soo qoray askaxi isagoo laga saaray kadib baa shahaadadii la celiyay waxaa la yidhi wadahadalkii waxaan ku gaarnay in aad ka saarteen haddana shahaadadiis waxaa ku qoran askaxi antexi birhan ka baaqan markaas ayaa asugsi loogu soo qoray ma garanayo waalidiinta inta badan inay arrintaasi ku baraarugsan yihiin in kale laakiin waa loo baahan yahay ilmaha naftirkooda in lagu dhiirigeliyo sidee markaasi looga saari karaa sidee looga bixi karaa ilmo kasta ma ka bixi karaa waa suurtagal ilmaha markay yareer yihiin wax akriskaa badiyaan buwaag librariga looga soo qaado affinishka ayaa la qiimeynaya affinishkii baa la xisaabinaya minuti imisa xaraf ayuu ilmuhu ku akrin karaa ayaa la xisaabinaya
marka buugga uu kala furo saacadda dhig loo siinaya imtixaan baa laga qaadaya ilmaba ilmaha uu wax ka akris badan yahay ayuu ka finish fiican yahay waxyaabahan iskuolka lagu soo dhigo keliya luqadda laguma barto dadka banaanka lagula hadlana luqadda laguma barto wax akriska aad iyo aad buu muhiim u yahay in buugaag dheeraada loo soo qaado duusan kitaabka akrinaynin la yihahdo buugga akri ilan ilmo t v unbuu fiirsanayaa meeshuu fadhiyaa telefoon buu ku ciyaarayaa lakin haddaad wax kale ku mashquulisid isaga naftirkiisa marka dambe wuu xiiseynaya waxaad ku mashquulinayso wada shaqaynta waalidiinta iyo iskuullada aad bay muhiim u tahay waalidiinta naftirkooda in ay wada sheekaystaan oo marxaladaha marka uu jiro iskuullada isku mid ilmaha hadday goosaari dhigtaan ilmo kala meel marki dhigta ilmo kala xaggaa dhigta waalidiinta waxaa laga yaabaa inay meel ku kulmaan inay arrimahaas ka sheekaystaan naftirkooda way fiicantay iskuulkiinaba ka warrama suu yahay macallimiinta isku mid maaha macallimiin fiican baa jirta macallimiin waxaa jira maaragtay oo muujinaya inay fiican yihiin systemka ahaan laakiin aanan runtii qalbigooda ilaahay og yahay marka meeshaan joognana waa meel qurba ah waddanka siduu waagii hore u ahaan jirayna ma aha sanad walba waxbaa isbedelaya sanad walba waxbaa xumaanaya xisbiyada cunsuriyaashu way soo badanayaan dadka saas oo kale marka annaga doorasho hadda maaragtay aan wax ku bedeli karayno bulsha saas wax u bedeli karta ma nihin laakiin xagga cilmiga iyo maaragtay waxbarashada waan ku bedeli karnaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo in ilmaheena aan laga soo dacwoonin in ilmaheena ay si fiican wax noogu bartaan iskuullada ay la qabsadaan waalidiinta iyo macallimiinta ay wada socdaan si maaragtay aysan iskuullada dhibaato annaga noogu keenin wada shaqayntu waa arrin aad iyo aad u muhiima iskuullada ha lala xiriiro macallimiinta hala waraysto ilmihiina waraysta ilmaha inta ku dhashay way su-aalo badan yihiin wax walba inay ogaadaan ay rabaan su-aalahooda ha loogu jawaabo ha looga jawaabo su-aasha ay qabaan idinkana su-aalo weydiiya way ka jawaabayaan waxyaabo badan oo annaga aanan ogeyn bay noo sheegayaan haddii subax kasta lala sheegtay iskuulka ka waran macallimiinta ka waran macallinkee kuu fiican wax ku dhibo ma aragtay saaxiibo ma leedahay ciyaal kaloo ku dhibo ma jiraan waxyaabaha ugu weyn ee ilmaha lagu caawin karo haddii walaala ay iskuullada wada dhigtaanna ayagana la yidhaahdo iska warhaya casharada isla fiiriya inay iska warhayaan casharada isla fiiriyaan hadday suurtagal tahay subaxii markay baxayaan hadday isku jid yihiin isku jid ay maraan markay soo noqonayaan ay isla soo noqdaan si la isula socdo ilmahan xoogaa madaxa soo qaadaya waa kuwa maaragtay ugu dhibka badan mana aha maaragtay wax xun geel laba jir soo wada mari waayo qof walba markuu dhalinyaro ah ama markuu yaraa wuu ogyahay suu ahaan jiray laakiin annaga waxaanu ku dhex jirnay bulsho isku dhaqana bulsho isku diin ah ilmahaga markii aada iskool u dirto hadduu meel taagan yahay maryaa inta maxaa u taagan tahay xilligii iskoolka soomaa ayaa la dhihi jiray hadda waxaa jira ilmo soo baxaya oo iskuulka hore uga soo baxaya ama daahayaba oo wiilmadii ay wada bunaaneen tahay waalidkiina aan ka warqabo intee ka timi iskuulkan ka yimi waxaa laga yaabaa inuu suuqa dhinaca dhan uu soo maray ayaa dhici kartaa jadwalka iskuulka waalidka inuu la socdo aad bay muhiim u tahay
goormaad ka soo baxaysaa iskuulka jadwalka aada ogaatid 8 saacaan soo baxaya 9 saacaan soo baxaya 9 saac iyo 40 aan soo baxaya waa taqaanaa iskuulka inta daqiiqadooda iyo guriga inta loo soco aad ku xisaabtantid waayo hadday guriga joogto haye wuxuu soo baxay 8 saac bar waay haddana 9 saac waay in la waco intay joogtaa ma soo socotaa waa cunugaaga maaragtay uusan asaga wax kuu meerin jadwalka inaad la socotid waa shay aad iyo aad u muhiima ilmaha ma xuma laakiin waxay helayaan saaxiibo xun waa saaxiibada wax qasaya bulshada soomaalida haddaan nahay ilmahan carabta ah mafaarada ilmahan carabta waa dhib badan yahay ilmahaaga inaad la socotid qofka uu la saaxiibkiisa waa shay aad iyo aad u muhiima inaad la socotid yaa la saaxiiba ah saaxiibkiisa waa ayo taas waa arrin muhiim ah waxbarashada dugsiga hoose dhexe waa shay aad iyo aad u muhiima galaaska 9aad marka la joogo keliya in la baraarugo waa laga fiican yahay haddii 8aad markuu 8aad shahaadadiisi ay ahayd 5 6 sidii 9aad wuxuu dhan uu maaragtay keski arba uu keeni lahaa 8 isku celcelin 8 uu keeni lahaa way adag tahay ama 9 way adag tahay sanad walba dugsiyada sare natiijada lagu galo way isbedeshaa ilmaha intay yareelihiin aa la rabaa buundadooda inaad ka fikirto maada hadduu 5 keenayo ama 6 uu keenayo aada istiraadid haddii uu sidan kusii socdo allay lehe waxaaba dhici kartaba inuusan secondary helin galaaska 9aad keliya aan lagu baraarugin dugsiyada hoose hala baraarugo shahaadada markuu keeno hala fiiriyo sanadkan markuu buundo yar uu keenay ha lagu dadaalo sanadka soo socda galaas 9aad keliya aan la kicin 9aad keliya haddii la kaco waxaa dhici karta inaan cunuga uusan secondary uusan aadin inkastoo amarki cowlu iskuulladan professional schoolka ahda ay yihiin professional iskoolla wax lagu baran karo oo qofkii maaragtay wax barta uu meel ka gaari karo haddana annaga waxaan rajaynaynaa annaga meesha aan joogno ilmaheena inay joogaan meesha annaga aan joogno meel ka saraysa waalid walbana saasuu rabaa waalid walbana saasuu rajaynaya yaan lagu qaclacsanaanin keliya maaragtay amarti kowluu gelayaa hadhowdii hadduu raba ha galo asagoo buundo fiicansa ha galo horta qofka wax baranayo waa asaga wuxuusan xiisaynaynin laguma qasbi karo laakiin asagoo buundo fiican haysta galaaska 9aad ha kaaga baxo wixii uu rabana markaasi asaa baranaya waxna laguma qasbi karayo laakiin cunug kasta oo moraal haya oo number fiican haya oo lala taliyo waxbuu qaadanaya insha allah marka intaasaan uga baxayaa haddii wax su-aala ay jiraan aan isku soo noqonayna una waa kale sugille ayaa isagana iyada raali ka noqon السلام عليكم.
isku dayaa sida maxamed deganaantii u hadlay inaan u hadlo waan isku dayayaa aniga xoogaa waxaan moodaa inaan gudboodayo horta asalaamu calaykum waxaan ka shaqeeyaa mashruuc la yiraahdo bulshadu inay garab istaagto waxaan ka shaqeeyaa jaaliyadda soomaaliyeed soomaali lastanlito mashruucaas oo ah maandooriyaha waxbarashada maandooriyaha haddii la yidhaahdo baxdheed kasfatus waa qeyb ka mida waxbarashada oo ah maandooriyaha iyo dhibaatadiisa da-da aan la shaqeeyo ama aan caawiyo waa da-da 11 iyo 15 jirka ah waa caruurta aan weli bilaabin wax maandooriye ah sidii looga badbaadin lahaa looga wacyigelin lahaa waxaa si toos oo la shaqeeyaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka dhiga inay iyagu u gudbiyaan dhalinyarada dhibka maandooriyaha uu leeyahay iyo waalidiinta oo aan siino koorsooyin gaagaaban si ay carruurtooda ula sheekaystaan dhibka uu maandooriyuhu leeyahay 3 waxaa dhalinyarada laftigooda tusnaa qof rool maali ama qof ay ku dayan karaan oo noloshooda qof nolosha horumar ku gaaray ay ku daydaan qof dhakhtarnimo soo bartay oo ciyaalka kala hadli karta waa maxay sababta loogu baahan yahay barashada maandooriyaha dhalinyaradu ama sida maxamed sheegayba waa inay ogaadaan waxaad u diidaysid waxay sabab tahay haddaad maanta kala hadlaysid sigaarka dhibaatadiisa waa inaad u sharaxi kartaa sigaarku dhibaataduu leeyahay inuu sanbabada waxyeelo inuu gaas suga gaaskan hadda la nuugo ay dhalinyaradu isticmaalaan waa inaad u sheegi kartaa dhibkiisa sahka tubaka weli baaritaankii la baaray sahka tubakada ama sigaarkan ay dhalinyaradu isticmaalaan la yihahdo bibu ama sahka tubakada weli lama ogaa dhibaatada kasoo baxaysa haddeer ayuu ku cusub yahay adduunka 10 sano ka bacdi ayaa la ogaanayaa dhibaatadiisa laakiin sigaarka waa la baaray waa la ogaaday inuu sanbabka iyo beerka iyo waxyeelo hamriga waa la baaray wadnaha inay waxyeesho haddana waxaa la ogaaday inay keliyaha waxyeesho qofka carruurta ama dhalinyarada waxaad u sheegaysid waa inaad adigu og tahay oo taqaana oo ka wacyigelin kartid waalidkuna waa inay siiyaan talooyinka iyaguna og yihiin arrimaha caafimaad uu leeyahay waalidkuna waa inuu og yahay marka sidaas ayaa loogu baahan yahay barbaarinta maandooriyaha hay-adda tohel ama tudkimusyada la baaray waxaa la ogaaday in carruurta soomaalidu iyo ajanabiga ay tijaabiyaan maandooriyaha haddeer awal dugsiga dhexe ayay ahayd sida maxamed sheegay dhibaatada ka taagna dugsiga 9aad 8aad haddeer warbixinada waxaa lagu ogaaday 10 jirka dugsiga hoose dhexe dhigtay borosko ala aste inay tijaabiyaan nooc ka mid ah maandooriyaha sigaarka sahka tubakada iyo xashiishada oo musqulahooda lagu arkay waa galaas 10 jirada waa galaaska 6aad 4aad 5aad waa lagu arkay haddeer marka waxaa la yidhi maadaama waalidiinta dadka muslimka waxaa la aaminsan yahay dadka muslimka carruurtooda waxaa la aaminsan yahay waalidiinta ayay maali ama tusaale ka qaataan maadaama waalidku wax balwada u lahayn ilmihii uu ku dayan karaa waalidkiis laakiin waxaa la ogaaday tirada ugu badan ee da-da wax tijaabisa 11 jir ilaa 15 jirka waa carruurta ajanabiga ah maadaama dadka finishka way awoodaan inayba kala hadli karaan carruurtada dhibaatada maandooriyaha leeyahay laakiin dadkan ajanabiga ah weli uma bislaan waxaan dadka waalidiinta ku wacyigelinaya say carruurtooda geesinimada leh aada habeenkii ula sheekeysan lahayd dhibaatada uu leeyahay maandooriyo dhalinyaraduna waa inay helaan ama aada adigu waalidkiioo diyaarisaa ilma isku haweyn qaabkiisu dhisan yahay diintiisu dhisan tahay waxbarashadiisu dhisan tahay wax walba oo xunna iska difaaci kara waa inaa ilmuha diyaarisaa ilmuhu mar walba wuxuu u baahan yahay wax xog ah run ah oo uu ogaado waxyaalaha ku kalifa carruurta
inay isticmaalaan dooriyaha waa saaxiibka xun ay raacaan oo aan la ogeyn oo waalidka ogeyn ama sida maxamed sheegay walaalkeen carabta ha u badnaato ama ajanabiga ama soomaaliga waalidkiisa ama la keenay oo la yidhi anaa soo korsaday laakiin waalidkii aynu ku dadaaleen sida ilmo ay dhaleen oo kale ama ilmo dhibaato lagu soo sameeyey waddankii soo maray taraamliga waxaa la yihahdaa dhibaatooyin maskaxda kusoo dhacday oo matu maxamed sheegayay ilmaha oo dhan waa inaad si degan loola hadlaa oo si wanaagsan loola hadlaa ilmo maskaxdiisa dhibaato kusoo dhacday waxna ma baran karo balwaddana waa u sahlaya ilmaha keligiis ah oo meel cidlo ah joogana oo maaragtay saaxiibo aan lahaynna iyo ilmaha kii uu sameynan lagu sameeyo oo la dhibo oo deete la yihahdo wax ma baran kartid waxna ma yeeli kartid marka balwaddu ka dhiganayaa badbaado taasna way ku kaliftaa waxyaalaha carruurta ka badbaadin kara dhalinyarada ka badbaadin kara balwadda waxaa ka mid a inuu leeyahay asxaab fiican uu ku qanacsan yahay inuu kooxa banooni ku cayaaro inuu leeyahay saaxiibo wanaagsan ama tuki faircost waxaa la oran karaa waalid maaragtay caawinayo wax walba ka caawin kara waxaasoo dhan ayaa ka badbaadin kara luuqadiisa finishka xataa waa inay dhisan tahay waxa waxa lagala hadlayo oo saaxiibka oranaya kokeele xataa inuu ogyahay inay dhibaato u keeni karto akrin karo uu ogyahay meesha laga soo waalidkuna waa inay la socdaan mar walba ilmihiisu meesha ay joogaan iyo waxay sameynayaan iyo wax kastaba sportiska hiwaayadaha waxyaalahaas oo kale dhalinyarada way ka badbaadiyaan balwadda iyo taan idin sheegay waa inaad ilmahaaga kala hadli kartaa balwadda iyo dhibaatada ka bilow sigaarka iyo sahka tubaakada waa maxaa la albaabka laga soo galo balwadda kuwan xashiishka iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaalahan kale daraagada waaweyn iyo gadaal bay ka yimaadaan da-daas laakiin albaabka laga galo waa sigaarka waa inaad u sharaxi kartaa ilmaha oo habeen kala sheekeysan kartaa dhibaatada uu leeyahay sigaarku aad tiraahdaa maanta waxaan ka hadlaynaa aaba ama hooyo sigaarka dhibaatadiisa sababadaynu waxyeelo iyo waxyaalahaas ayaa hadalka maxamed sheegay in ilmaha laga warhayo oo la wacdigeliyo waa wax meesha ku jira oo la wada hadlo waxaa dadkan ajanabigan lagu xantaa ma ciyaarka lama sheekeystaan ama ma caawiyaan ama kalama sheekeystaan dhibaato marka dambe yaa la baraarugu siduu maxamed u sheegay galaaska 9aad markuu marayo waa markuu gaaray de meesha ugu sareysay daraagiskii ama meesha ugu dambeeyey laakiin waxaan ka wadaa sigaarkan iyo sahka tubaakadan ee hadda ilmaha waa wax qalinkan u eg ma garan kartid gabdhaha iyo boorsooyinka ku wataana la yiri iyo wiilasha qalinkan u eg yahay banaanka markuu u baxo mana soo uraayo waa afuufaya qiiq gaas kuwa jeynaha laga dalbado ama temo wax ku jira xataa lama yaqaan sunta iyo dhibaatada marka waa waxa hadda baaritaankiisa dhibaatadiisa la baarayo wuxuu sababada u geysto oo wax adduunka hadda ku cusub weeye la baarayo marka inta ka weyn loo gudbin bal waxaan yar aad qalinka ilmuhu ku xaragoonayo oo modelka u noqday waa in laga wacyigeliyaa waa daaqadii laga gelayay waxyaalaha aanan shaqeynin ubadka maaragtay marka la barbaarinayo inaad shoog gelisid inaad maaragtay aad shoog gelinta waxaa weeye inaad ku qalisid haddaad ku aragti maanta isagoo cabaya inaad shoog gelisid maaha inaad kala hadashid aabo dhibaatadaas uu leeyahay si degan si wanaagsan si qurux badan aad u sharaxi kartaa caafimaadka iyo dhibaatadiisa ilaah baa qur-aanka noogu sheegay balwad kasta wax walbaba xadiisyadii qur-aanka kusoo degay laakiin dhalinyaradu waxay u baahan yihiin salitus ama inay ogaadaan xogta waxaa loo diidayo wuxuu leeyahay baqdigelinta ma fiicna iyo waxyaalaha kale reer baa wiilkooda balwad isticmaalaa in reerkaas dhan lagu isticmaalo wiil xun bay dhaleen oo balwadu isticmaalaa taana waa signalka waxyaalaha maaragtay aan wanaagsanayn in laysku calaamadeeyo oo maaragtay anigu uma jeedna shaksi uma jeedna laakiin waxaa ka tusaalaha guud ee soomaaliya in maaragtay reer ama bulsho lagu calaamaday wiilkooda ayaa balwadaas isticmaala waa waxyaalaha aanan shaqaynayn oo maaragtay in laysku bahalkeeyo
dhalinyaradu wataa sheegay ma ogola mana mar walba waxay rabaan waxaad u diidaysid inaad adigu tusaale ka siisid aada u sharaxdid sida walaal maxamed sheegayba intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wixii su-aalo ah waad na weydiin kartaa aniga maxamed badiyaar baan u nahay anigu waxaan ka shaqeeya saan u sheegay barbaarinta iyo barashada maandooriyaha dhalinyarada aan weli bilaabin sidii looga wacyigelin lahaa oo loogu sheegi lahaa waxaan la shaqeynaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka waxaan tagnaa meelaha dugsiyada qur-aanka waalidiintana koorsooyin dhalinyaradana si toos ah ayaan meelo ugu tagnaa oo ka wacyigelinaa oo mid walba dhibaatadiisa caafimaad aan u sharaxnaa saxka tubaakada usoo qaadanaa civil varkatus waxay nolosha ku leedahay waxa dhibaato u keeni kara casharo noocaasana dhalinyarada waa kala hadlaa waa kala sheekaystaa geemam iyo turubyana oo noocaas oo kale oo i diyaarsana waan kala hadlaa oo aan ka wada sheekaysano markan runta haddii lagu hadlo dhalinyaradini soomaaliyeed way baaba'san tahay da-da 19 jirka iyo wixii ka weyn magaaladay buuxaan waa la ogyahay wax laga indhasaabi kara maaha bal sidee u badbaadinaa kuwan aan weli bilaabin oo jidkii kusii socda waalidiin badanaa nala soo xiriira 4 saac oo nala soo wada ani wiilal badan oo soomaali ah ayaa ka shaqeyna maaragtay barbaarintan iyo sameeya wadooyinka socda oo arrimaha ka shaqeeya laakiin anigu dhalinyarada aan weli bilaabin ayaan wacyigelin noocaasa siinaa marka waa la sheegay waxaan ii dhalinyarada ajanabigaana waa da-dii tijaabisa oo lagu arkay oo iskuulaadka oo dhan macallimiintii oo dhan ay welwel ka qabaan ay nala soo xiriiraan iyo booliska iyo cid walba oo wax arrintaas waa wax jirta marka wax doodayo noqon waxaan ii maxamed keliya wada hadalno qof walba fikradiisa iyo raggiisa uu soo jeedi karaa waana u banaan yahay walaal soo tafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaan wacyigelinta arrinkan waxbarashada carruurta horta waxaa jira muxuu ahaa waxyaabo badan oo annaga haddii aan waalid nahay qaabka annaga aan wax u rabno iyo qaabka ilmuhu ay wax u rabaan horta way kala gedisan yihiin ilmo waxaa jira firfircoon oo isla markiiba intay yar yihiin fahamkiisa ka soo haddana wuxuu mustaqbalka raba inuu noqdo ayuu caddahay sababtoo gabar ama wiil baa wuxuu go-aansanaya aniga markaan weynaado waxaan rabaa inaan noqdo waxaas waxaas laakiin haddana maskaxdiisu way isbedeli kartaa waxay wixii wax kaloo ka xiisa badan uu qaadan karaa laakiin habka ugu wanaagsan ilmaha loo jihayn kara ama meeshay sheegtaan loogu soo adkeyn karaa waxaa ka mid a in psychologically ilmaha marka horeba cajarad looga dhigo lagu duubo hadduu yidhahdo dhaktar baa noqonayaa o dhaktarkii baa soo galay inaad dhahdo ku bilaabo o dhaktarkii baayot inaad sii tiraahdo oo ku celceliso aad ugu sii dhiirigeli marka waa kulay arrimahan taasaan ka leeyahay gabdhaha ama dumarka lagu badiyo oo la xasuusto sida hooyooyinka iyo gabdhaha kasoo qaabgalaan iyo aabaha iyo gabdhihiisa inay isla hadlaan arrimahan waxaan rabnay inaan sheegno haddaan gabdho nahay inaan la xasuusto aabooyinka iyo gabdhihiisa sidii inaynan isla hadlaan oo arrimahan ka sheegaystaan oo gabdhaha la ilaawin maadaama ana intaasoo iskoola ka shaqeeyay meelahaas waxaan ka xasuustaa inaa wiilasha wacdigelintaa la siin jiray oo gabdhaha la ilaawi jiray gabadha oo guriga joogto oo guriga hagaajinayso iyada xitaa waxaa laga yaabaa inay balwad badan haysato la ogeen oo la arkeenin aniguna shaqadaya waxaa ku arkay inaa gabdhaha arrimahooda iyo gabdhaha waxaa lasoo xasuustaa markii arrinta gaarto kuwaastaan oo ama markii arrinta gaarto markii gabdhaha halis markay noqoto halis aad iyo aad markay noqoto waa la ogaadaa gabdhaha isbitaalka aadaya markaas gabdhaha lasoo xasuustaa
maadaama markaas balwadooda maqarin karaan laakiin wiilasha sigaari waxaas waa lagu ogyahay waa la arki karaa laakiin gabdhaha maadaama gabar yihiin gurigana eneman way joogaan so waxaa laga yaabaa qolkeeda xitaa inay balwad ku haysato oo waxaan rabnaa le inaan meesha ku xasuusina aabooyinka inay gabdhaha xitaa ka warhaayaan.